بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بر أما برو casharkana maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo isticmaalo team viewer waa barnaamij share ku sameyn karo ama connect waa barnaamij isku xira laba computer iyo wax ka badan. tusaale ahaan waxaa u baahan tahay computerka qaraabadaada ama eheladaada ama computerka saaxiibkaaga inaad kala soo baxid documenti. haddii aad macnaha isticmaalaysiin team viewer waxaa siisanaysiin passwordka iyo id numberka. marka team viewer waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo adiguna uu ku anfici doono sidaan filayo. qofka yaqaanana waa yaqaana, laakiin qofka aqoonin waa anfici doona insha allah. marka team viewer hadda computerka waa kan shaashada ayuu saaray sida ku muuqata. waxaan ku tusinayaa website-ka aad kasoo baxsanaysid iyo sida loo soo download gareeyo. google ku qor team viewer kadib enter dheh. waxaa ku arkaysaa midkan ayaad dooranaysaa ay ku qorataa teamviewer.com website-kiisa. waa kaligaa siinaysaa, waa u yara sugaysaa, kadib sidaan ayaa soo baxaysaa. haddaa carabi taqaanid luqada carabiga waa isticmaali kartaa, laakiin aniga haddaa english ayaan isticmaalayaa. inta soo fur halkan luqada dooro, hadba luqadaa taqaanid. marka english aan doorto kadib waxaan ku dhufanayaa halkan ay ku qoran tahay start full version, it's free waaye. kaas ku dhufo click waa sugaysaa markaa ku dhufato oo soo furaya. kadib wuxuu ku tusinayaa boga aad ka download garaysan lahayd iyo cabirkiisa inta uu dhan yahay. okay, download now. size-kiisa waa 3.95 megabyte. okay, download now click ama halkan ku dhufo soo degso. kadib sidaan ayaa kusoo baxaysa. haddii uu kasoo daaho halkan waxaa ku qoran check for your browser security bar at the top of the page. haddii uu kasoo daaho halkan waa ku dhufan kartaa click here, waa ku dhufanaysaa click here. kadib halkan ayaa ku arkaysaa isagoo soo degaya meeshaas hoose aka team viewer. halkaas ayuu kusoo degaa sida appka. marka markuu kusoo dego kadib kuley waa ku shubanaysaa. intaa furtid run ayaa dhehaysaa, kadib install next bacdeen finish. saasay ku dhamaatee. marka aan usoo noqono. marka installka aad dhamaysid kadib wuxuu kusoo korayaa shaashada. waxaa sameynaysaa right click open, waa furaysaa team viewerka. kadib sidaan ayaa ku arkaysaa halkan inta waxaa ku qoran user id numberkaaga waaye, kana passwordkaaga. aniga kii waa marka rabtid computer kale inaad booqatid ama aad share la sameysid, halkan ayaa ku qoraysa computerka kale lambarkiisa. laazim inaad ogaatid waa lambarka qofka computer kale inuu kuu sheego. marka aniga hadda waxaan galayaa pc kale oo dhinacayga yaala oo aniga le aan isticmaalo. marka tusaale ahaan idinkaan idin tusayaa sida loo galayo. okay, lambarka intuu ku jiro ku kaydsan yahay waa kaas. kadib markaa ku dhufatid intaas halkan remote control ayaa ku dhaafaysaa. kadib connect to partner click ayaa siinaya connect to partner. waxaa sugaysaa halkan ready to connect ku qoran. markuu cagaar yahay uu shaqana diyaar ayuu yahay. marka waa kan halkan wuxuu ku kan please enter the password that is displayed on your partner's computer password. marka passwordka waxaa gelinaysaa computerka aad rabtid inaad gasho, matalan computerka walaalkaaga ama walaashaada ama midka saaxiibkaaga, hadba midkaas oo aad u baahan tahay inaad gashid. laazim inaad passwordka aad haysid oo isaga ku siiyo ama iyada ay ku siiso. anyway aniga hadda waan haystaa computerkan aniga la iskale waa laba pc. marka okay, marka passwordka aad galis kadib logon aa ku dhufanaysaa. waa kaas sida hadda shaashadkaaga muuqata. waxaa aragtaa meeshaan computer kale shaashadiisa. computerkaas oo kale luqadiisa ay tahay luqad carabi, waxaana ku jirta window xp arabic. aniga keyga waxaan isticmaalaya hadda waa kana ujeedaa waa english ahaan aan isticmaalaya. waxaana ku jira cyber xp ultimate edition 2010. marka waa kan hadda waxaan isticmaalaya computerkaas kale. hoosaan iska dhigayaa midkeyga cadigana oo ku tusinaya shaashadeeda. waa kan kalarkan ay saaran. computerka kalena oo hadda aan ku dhex jiro option waa kan qaabkan.
marka waxaad samayn kartaa waxa awoodaad computerkan wax walba oo ku jira inaad kasoo baxsan kartid wax walba oo ku jira documenti ama program wixii ku jira مثلا هذا صور كان عفرنا أو قرن رمضان بروفيل وكان صور واي هذا وبهانتا إن كمبيوتر كا كشوفت ح استعمال الساعة خاب كان حاكل فنيسا فيل ترانسفير مركا دوكمنتك بحسن يسيد كدب سيدانا يكون سبحسه كمبيوتر كان وكمبيوتر ككله مت كان نوا مت كان هذا استعماله مركا كان حارة أنا كسب حسده تصال أهان sawirka hadda maxaa ku qornaa Ramadan profile sawirkan ayaa u baahanahay inaan computerkan ku shubo marka sawirka kaliya aad siinaysaa markaas kadib waxay imaanaysaa halkan ay ku qoran tahay receive send selected objects to local computer okay kaliya ayaa siinaysaa waa ka ala tool intuu soo galay computerkan labaad ready waa kan Ramadan profile okay marka kan waa iska xiraysaa kan waa iska dhig marka fail transfer message kadib marka waxa awooda computerkan meel walba inaad ka qayb gali kartid datadiisa waa geli kartaa my computer aan furaynaa waxaan furaynaa halkan webcam webcamka waxaa arkaysaa aniga isticmaalaya okay waa ujeedana waa fududaa team viewer masha Allah that's right okay marka camka waa iska xiraysaa close kadib akan saan ayaa loo isticmaalaa aad ayuu fududahay masha Allah okay aan iska xirna marka xiraysid kana ku dhufanaya close intana okay ayaa dhaysaa waa ka baxday kaasna waa ka tirtiraysaa computerka mar walba team viewer isticmaalaysid passwordka ama ID numberka marba isbedelaan hadda rabtaa bedelan kartaa okay daawashadiina aad ayaa ugu mahadsantihiin casharkan waxaa soo jeedinaya anigoo ah arrimaheena qofkii su'aal ka qaba casharkan waa isoo weydiin karaa subscribe comment and rate nabadgelyo